waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo xiisadaha ka taagan dalka Iran maalmahan Mareykanka waa tii la lahaa weerar ayuu ku qaadaya weerarkii laga baqayay inuu Iran uu ku qaado xagee ku dambeysay marka cawaale aad iyo aad xaaladda waddankaasi Iran horta aad bay u kacsanayd oo nidaamka waddankaasi ka jira waa nidaam dadka caburiyey maciishadii waddankuna hadda qaali bay noqotay waa waddan xorriyaddii dadka aad u xirxiray oo muxuu ahaa wuxuu lahaa wax la yidhaahdo morality police aan booliiskii sharciga ahayn oo muxuu ahaa eegaya gabadha muxuu ahaa aanan khamaar xidhnayn iyo waxyaabaha noocaas oo dee sharcigii dowladda baal marsan oo xorriyaddii dadka ummadda ka qaadaya ayuu ahaa marka waxa dhacay kacdoon dadweyne ayaa dhacay oo si nabdoon ayaa dadku ay dowladda uga soo horjeesteen ee u mudaharaadeen laakiin dowladdu waxay kala hortagtay awood waxay bilowday in dadkii shicibka ahaa ee mudaharaadaya sida nabdoon u mudaharaadayay in la laayo oo rasaas nool lagu rido qaarkoodna la xirxiro waxaana soo baxday in la laayay ilaa hadda inkastoo internetkii la jaray laakiin wararka rasmiga ee soo baxaya liibaan waxay sheegayaan ilaa iyo hadda in la dilay 2,500 tiro ka badan isla markaana 800 oo qof la dhaawacay waxa kale oo la sheegay in boqolaal qof oo muxuu ahaa la xiray iyadoon maxkamad cadaalada la marin si degdega in dil loogu xukumay taasi ayaa markaa soo jiidatay madaxweynaha Mareykanka oo waxa uu markaa dadka Iiraaniyiinta ee qurba jooga oo ka mid yahay nin uu dhalay boqorkii hore ee Shah ee haysan jiray intii ayna qoladani muxuu ahaa islaamiyiintu ayna xilka qabsanin ninkii ay afgambiyeen 1979 inankiisi baa Mareykanka jooga dadkaas oo Mareykanka galaangal u leh ayaa madaxweynaha Donald Trump waxay ka codsadeen inuu farageliyo oo shacabka la gumaadayo uu ka qabto sidaa daraadeed madaxweynuhu khudbad buu jeediyay wuxuu yiri shacabka mudaharaadkiina sii wada gargaarkii iyo taageerada ayaa dhexda ku soo jirta markaa waxaa caddaatay inuu maalmihii hore uu weerarku uu dhow yahay waxaana sii caddaysay in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay amartay in ciidamadeeda ku sugan dalka Qatar gaar ahaan saldhigga military ee ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin Qatar oo la yiraahdo Al-Udeyd in ciidamada badankoodu ay iskaga soo baxaan qoysaskooda iyo shaqaalaha rayidka ee Mareykanka ee saldhiggaasi iyagu ka shaqeynaya la amray taasi waxay cadeynaysay in uu soo dhowdahay inuu Mareykanku weerarayo Iran waayo sababta looga daadgureynayay oo ciidamada halka loola soo baxay waxay ahayd in haddii Iran la weeraro ay weerar muxuu ahaa argosiya ay ku soo qaadaan saldhiggan Qatar oo ay soo weeraraan siday horeyba u sameeyeen sanadkii hore bartakiisii markii uu muxuu ahaa dagaalku dhex maray Israa'iil iyo Iran laakiin uu Mareykanku markii uu duqeeyay oo xarumaha nuclearka ay ciidamada cirka Mareykanku ay duqeeyeen watii Iran sawaariikh ku soo gantay muxuu ahaa waddanka Qatar gaar ahaan saldhigga ciidamada cirka ee la yiraahdo Al-Udeyd oo u dhow isagu magaalada Dooxa ee waddankaasi Qatar marka si cadaadiskii la saarayay madaxdii muxuu ahaa Iran ayaa waxa ay ogolaadeen in ay joojiyaan dadkii arsaasta ku ridayeen iyo in ay joojiyeen dadkii dilka lagu xukumay ee dilka lagu filanay oo qaraabadoodu ay adduunyada la hadleen oona loo sheegay in la joojiyo dilka taasba maantadanba uu ka hadlay oo wixii maadaama la joojiyay dadkii dilka lagu xukumay dilkoogii weli go'aankii buuxda muugaan laakiin wuxuu yiri in qorshahaasi miiska yaala oo waxa uu ka fikirayaa haddii muxuu ahaa la duqeeyo oo muxuu ahaa la laayo muxuu ahaa madaxdani ciddii bedel lahayd wax laga baqaya inuu waddanku sidii Ciraaq noqdo oo waddan fawda ah oo noqdo waddankana waa waddan weyn oo xuduudo badan la leh ee wadamo badan marka waxa laga baqayaa in gobolka oo dhan ama qaaradda Asia oo dhaniba ay noqoto meel xasilooni darra marka waxa laga fikirayaa ciddii bedel lahayd maanta shir jirayd baa waxa uu qabtay ninka aan kuu sheegay uu dhalay boqorkii hore ee Shah waxa uu adduunyada u cadeeyay isaga iyo tiimkiisuba in ay diyaar u yihiin
in ay hogaamiyaan wadankaasi Iran oo ay ku hogaamiyaan ilaa iyo inta uu muxuu ahaa wadanku si dimuqraadiya ay u dooranayaan dadku cid matasha. waxaana la filayaa in wararka qaarkood ay sheegayaan in madaxda qaarkood ay baxsadeen, qaar badanina ay u baxsanayaan dhinaca Ruushka oo uu ku jiro hogaamiyaha ruuxiga la yiraahdo Ayatollah Khomeini. marka ma laga yaabaa marka sidii Venezuela oo kale inay ka dhacdo oo laga soo qabto madaxda meesha ka talisay madaxweynahoodaba kadibna madaxweynaha Mareykanka halka ay mataqaana ayagu ay la wareegaan, marka ma u malaynaysaa inay taa dhici doonto Cawaale? military ahaan marka aan wareysanay ama aan u kuurgalnay khubarada militariga ee Mareykanku faalooyinka ay arrinkaasi ka bixiyeen, suuragal maaha in lasoo qabto hogaamiye. wadankaasi systemkiisa waxa weeye madaxweynuhuna waxbuu xukumaa, laakiin waxa dusha kasii xukumaa Ayatollahan Ali Khamenei oo awoodiisu ay badan tahay. marka kee lasoo qabanaya wey, ma labadoodaba mise muxuu ahaa ninkaas? suuragalna maaha oo waxay noqonaysaa in muxuu ahaa ciidamo badan Tehran lagu magaalada Tehran lagu daadgureeyo. marka logistic ahaan waxa ay leeyihiin khubarada Mareykanku ma suuraгаlayso in sidii Venezuela ay lasoo qabto. wadanka uu ka awood badan yahay muxuu ahaa wadankii Venezuela, waxaana laga yaabaa in wadamada ay Mareykanka ay saaxiibka yihiin iyo masaldhigyada Mareykanka ku yaala wadamada saaxiibka ah ee Carabta sida Sacuudiga, Qatar, in uu weeraraa dhici karta oo khasaaro badan soo gaaro. Israa'iil inuu weeraraa dhici karta. marka iyaga waxaas oo dhan la eegayo, weli waxa khubaradu way darsayaan talaabadii laga qaadi lahaa, laakiin waxa muuqata oo khubaradu leeyihiin in maalmihii uu jiri lahaa nidaamkani adag ee Iran ka jira in ay soo daba dhow yihiin oo soo dhamaanayo. waa gartay kaasi waxa uu ahaa Cawaale Dayr oo si toosa stuudiyaha caasimadda Sembol oo igala hadlayay oo ku saabsan arrimaha wararkii ugu dambeeyay Iran iyo waliba xaaladda gobolka Minnesota.